furmeen saaka saacaddu markay ahayd 6dii laakiinse waxaa jira meelo ilaa iyo barqadii aanay codayntu ka bilaaban aan bal marka hore ku hormarno deegaanka Dhadhaab halkaasoo laga soo sheegayo shaqaaqo ay dad ku dhaawacmeen waxaana ciidanka ammaanku ay xireen ilaa iyo 3 goobood oo laga codaynayay oo hawshoodu iminka istaagtay goor dhaweyd ayaa arrimaha waxaan ka waraystay wariye Maxamed Baaruud Xuseen oo Dhadhaab jooga faaraxow waxaa jira qalalaaso rabshadaha ay dhexmar qaar ka mid ah codeeyaasha kala taageersan musharaxiinta ka tartamaya deegaanka Dhadhaab waxay arrintaasi ka dhacday iskuulka hoose dhexe magaalada Dhadhaab halkaasoo saacad markii 12 barkii subaxnimo iyadoo si fiican u socoto codbixintu ay qaar ka mid ah taageerayaasha musharaxiinta kala duwan isku farasaareen ilaa 3 qof aa dhaawacantay madaxa isbitaalka Dhadhaab Daawud oon la hadlay wuxuu sheegay in Mr. Daawud Xiire wuxuu sheegay ilaa 3 qof oo dhaawac in la soo gaarsiiyay isbitaalka laamaha ammaanka ayaa hawsha xakameeyay guud ahaan hadda waa la hakiyay halkaasoo ilaa 3 xarumood oo ka dhacaysay doorashada oo ku toosan iskuulka hoose dhexe waxaana meeshaasi ka codeynayay ku dhawaad 2,000 oo qof kuwaasoo saaka aroortii soo xaadiray balse shaqada rabshadaas ayaa la hakisay haddana jawigu waa uu degan yahay balse laamaha ammaanka ayaa meesha kor wareegahaya iyadoo weli aysan dib u bilaabanin codeynta mar kale wax dad oo la xirxiray ama loo qabqabtay shaqaaqadaas ma jiraan ilaa hadda laamaha ammaanka waxay sheegeen in hal qof ay ka shakisan yihiin in rabshadaasi ka dambeeyay u xireen isla markaana ay baaritaano ku wadaan sidoo kale waxaa goobta soo gaaray musharaxiinta gaar ahaan kursiga Dhadhaab ugu tartamaya kuwaasoo iyaga laftooda dadka ugu baaqay inay isdejiyaan isla markaana dadku qaarkood taageerayaashu arrintaasi aad bay uga xun yihiin jawiguna aad u degan yahay maxaa rajaha laga qabaa doorashada inay sii socoto waxaa la rajaynayaa haddii la xalliyo in arrintaasi dib loo furo goobtaasi laamaha ammaanka ayaana ku dadaalahaya waxaana loo sheegayaa dadka inay gaar ahaan waxyaabaha la yaab kaloo dadka saraakiisha ammaanka iyo kuwa doorashada ka argagaxeen waxaa ka mid ah dadka dhibaatada geystay qaarkood waxay gudaha la soo galeen baangado tooriyo iyo sidoo kale dabudad taasoo dhaawacyo lagu geystay baabuurba sidoo kaleeto la jajabiyey oo gaar ahaan ay dadka gaar ahaan taageerayaasha ay wateen dhibaato loo geystay marka rajo laga qabaa saacadaha soo socda inay dib u bilaabato waxayna ku xiran tahay qaabka dadka musharaxiinta ay uga dhaadhiciyeen taageerayaashooda in ay hawsha gacanta ku soo laabato kaasina waxa waa wariye Maxamed Baaruud oo jooga deegaanka Dhadhaab oo iga warramayay shaqaaqa halka ka dhacday wixii ka soo kordhan idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan isla wararka ku saabsan doorashooyinka Kenya ayaanu ku jirnaaye waxaa jira goobo wararka ka imaanaya ay sheegayaan in amni darri daraadeed aysan doorashadu ka bilaaban waxaana goobahaas ka mid ah deegaano ku dhareeran xuduudda Kenya iyo Soomaaliya wararkuna waxay inta ku darayaan in xubnaha al-shabaab ka tirsan ay u hanjabeen dadkii doonayay inay halka ka codeeyaan wararkaas iyo dib u dhacyada deegaanada qaarkood ka jira waxaa noo haya wariyaha BBC-da Xasan Cali Geelle oo magaalada Wajeer jooga imkana khadka toos ugu jira Geelle faarax door wanaagsan inkastoo meelo badan oo gobolka waqooyi bari Kenya ah ay si nabad ah ku furneen gobaha codbixinta oo dadku ay codkooda dhiibanayeen haddana waxaa jira meelo laga soo sheegayo amni darre iyo handadaad loo geysanayo dadka cod bixiyaasha ahi tusaale ahaana magaalada Wajeer ee aan kala hadlayo waxa ay ka kooban tahay 6 deegaan doorasho mid ka mid ah oo deegaanka Ceeldhaas ah waxaa tan iyo shalay ka taagnayd foodo iyo xiisad u dhaxaysay qaar ka mid ah taageerayaasha dhinacyada qaar ee ku tartamaya kursiga xildhibaanka deegaankaasi ku matali doono baarlamaanka dalkani Kenya 5 sano ee soo socota iyo laamaha ammaanka qaar ka mid ah taageerayaashaasi ayaa shalay ka biyo diiday mas'uulka guddiga doorashooyinka u matalaya deegaankaasi waxa ayna ku eedeeyeen in dhinacyada tartamaya dhinaca ka mid ah uu u xaqlinayo laakiin BBC-du arrintaasi ma xaqiijin karayso arrintaasi ayaa markii dambe sababtay gacan ka hadal dhex maray laamaha ammaanka iyo taageerayaasha musharaxaasi taa oo keentay in ay suurtageli weyday in qalabka codbixinta iyo horwadeenada guddiga doorashooyinkuba ay tegi waayaan goobihii ay ahayd inay doorashada ka dhacdo Ceeldhaas waxay ka kooban tahay ilaa iyo 72 goobood oo ay tahay inay codbixintu ka dhacdo waxaanan ilaa haatan ku xaqiijin karaa in goobahaasi aysan wax doorasho ah ka dhicin xalay rasaas ayaa laga maqlayay gudaha magaalada dad aan la hadalnayna waxay noo sheegeen in booliska oo damcay in ay kala eryaan dad caraysan oo ku soo xoomay agagaarka xarunta guud ee codbixinta magaaladaasi Ceeldhaas ay rasaas kor u rideen balse iyaguna rasaas kale lagu soo jawaabay cidda rasaasta booliska ugu soo jawaabtay ilaa iyo haatan BBC-du ma xaqiijin karayso laakiin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Wajeer Maxamed Aadan Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in wax doorashaha aysan halkaasi ka dhicin hadalkiisina waxaa ka mid ahaa Wajeer 6
constituency leedahay saaki 5 constituency waxaan ka bilaabnay codbixintay hal constituency oo Ceeldaas weli aan la bilaabin hadda la jooga waqtiga hadda aan joogno waqtiga aan bilaabi lahayn 12 ka ahayd marka dib yar ayaa dhacay shalay ku saabsan nabadgelyada halkaas ka jirta shalay dadkii loogu talagalay inay aadaan police stationyaalka ayaan meesha aadi waayay shalay dib yar oo meesha ka dhacay insecurity yar oo meesha ka dhacday ilaa xalay waxaa noola sheegay in meesha ay dib yar aska jirin dad aan la garanaynin hataa xabada ay meesha kusoo tuureen bannaankii meesha laga bixi lahay taayaro ay ku gubeen oo dad as bannaanka laga gubi laakiin alxamdulilah wax gudaha galay malaha police stationkii iyo alaabtii gudaha ku jirtay iyo dadkii gudaha ku jiray kulli wax dhaawac ma gaarin dib kalena kama dhicin marka taa la ajligeed waa la soo bixi waay halkiiba xalay dadka ay ku bariyeen saakin arrintii waa lagu jiraa kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka wajeer maxamed aadan cali oo warbaahinta la hadlayay oo arrintaasi kala hadlay ka dhacday Ceeldaasta dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay mid ka dhalatay diyaar garow la'aan ka jirtay guddiga doorashooyinka waxa uuna beeniyay in wax amni darraa ay halkaasi ka jirto hadalkiisina waxaa ka mid ahaa Inspector General Police 3 times since 3 a.m. this morning. I've just gotten on the phone in second. taliyaha booliska wuxuu ugu wargeliyay tan iyo saaka 3 aroornimo 3 goor waxaan kaloo la xiriiray Mr. Kianda isuduwaha amniga ee gobolka Waqooyi Bari ma aanan maqlin dhacdo ba'an oo xagga amniga la xiriirta wajeer waxaa ka taagnaa ismariwaha markii dambe ay IEBC xalisay mana ahayn arrin amniga la xiriirta waxa ay la xiriirtay maamulka doorashada iyo saraakiisha doorashada taasina waa shaqada IEBC Electoral administration and election officials that is responsibility of IEBC. kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i oo ka hadlayay dhacdadaasi ka jirta Ceeldaas oo tan iyo shalay ay xiisadii ka taagnayd taa oo sababtay in wax doorasho aysan halkaasi ka dhicin gel gobolka wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in amni darri lala xiriirinayo al-shabaab meelaha qaarkood laga soo sheegayo maxaa ka jira faarax arrintaasi waa ay jirtaa oo deegaano ka tirsan Mandera iyo Wajeer ayaa laga soo sheegayaa in rag la malaysan yahay inay yihiin shabaabku ay weerareen meelaha qaar la sheegayaba in tuulooyin ay rag hubeysan rasaas ku soo rideen gobolkan wuxuu xuduud la wadaagaa dalka Soomaaliya taa ayaana u nugleynaysa weerarada al-shabaab gaar ahaan deegaanada ku teedsan xuduudda xalay dabli la rumaysan yahay in ay shabaab ka tirsan yihiin ayaa sida la sheegay weerar ku qaaday deegaanka Carabiya oo ka tirsan Mandera ilaa iyo saaka waxaa halkaasi go'naa isgaarsiinta lamana sheegi karaya khasaaraha dhabta ee halkaasi ka dhashay sidoo kale tuulooyin ka tirsan bariga magaalada Wajeer ee aan haatan kala hadlayo ayaa la sheegayaa in shabaabku ay tan iyo xalay dadku u diidayeen tan iyo shalay ay raahday dadku u diidayeen inay tagaan goobaha ay tahay inay codkooda ka dhiibtaan dadka deegaanka Qarsa oo ka tirsan meel la yiraahdo Qorof Xaraar ayaa noo sheegay in shabaabku ay shalay gubeen gaari daabulayay dad doonayay inay codkooda dhiibtaan balse madaxa guddiga doorashooyinka ee Wajeer Maxamed Aadan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qalabkii codbixinta deegaankaasi markii dambe laguna geeyay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopteriska loo yaqaan meesha kale oo maanta haddana aan saaki ay bilaabanin waxaa ka mid Wajeer East meesha hadda aan joogno meel police station yaal saddexan saaki aan la bilaabin laakiin hadda waqtiga hadda aan joognana meeshii alaabta loogu talagalay ay diyaarad ay qaaday saaki helicopter saaki waxaan helicopter aan u qaadnay shir aan u qaadi waynina meesha meel waxay noqotay iyadoo meel dhibeysan meel oo securitygeeda asaas u wanaagsaneen shalay galabtii gawaari baan halkan ka darnay gawaarida xalay xabado baa lagu soo tutuuray laakiin security badan ay wadateen gawaari ciidamada la jiray ciidamadii baa wax ku celceliyay markaas sidii nabad bay ku tageen dhaawacan ma laakiin taas laajrigeedan aan u sameeyay saaki aan qaadno meel konton la dhaha iyo Qorof Xaraar waaye marka insha Allah saakina diyaaradu way qaaday alaabtina way geysay marka waxaan filanayaa in iyadana hadda arrinta ay bilaabatay kaasina waxa uu ahaa mas'uul ka tirsan guddiga doorashooyinka ee wadanka Kenya ee geelle weli khadka ayuu ku jiraa geelle meelo gobolka ka mid ah oo weliba halka aad joogtid ay ka mid tahay doorashada bal sidee uga socotaa
faarax inta badan goobaha ay doorashada ka dhacaysay oo maanta tagay doorashadu si wanaagsan ayay u socotay laakiin waxaad dareemi kartaa in tirada dadka ka qayb qaadanaya doorashadan ee codkooda dhiibanaya ay aad uga yar tahay tiradii la filayay saaka waxaa ii suurta gashay inaan meelo badan oo dadka codkooda ku dhiibanayeen aan soo maro goobahaasina dad badan ayaa joogay laakiin sida la filayay maahan gaar ahaana gudaha magaalatan Wajeer dadkii codkooda dhibtay ayaan qaarkood la hadlay hadalkoodina waxaa ka mid ahaa أي مقعد شغل هذا المادي أحمد علي له إن آذن وتصعد يسير قد يا فرت الجوسو قليل نعم هي مركز واو سيدي ما لقرب ومرت نول بمنكي دورنا يا منكي أنا مرت عن إيه مدحوينين دورتي مرت يان دورتي إن ساكن في قصة كاتب ليش الساعات معنا مع 6 ولحد أرورين لحد أرورين أنت صفقة كجرتي أنت صفقة كجرا هي مركز صفقة دير بحوقش صفقة دير بحوقش أنا مرت عن مرت كوريجي أنا كده وح حقيقي أصلية مرت ودولة نول بمنكي ترى بس دورنا إنك أنا مرت عن علينا وعليه ninka aad rabtad maxaad ugu dooranaysaa waxaan u dooranaa inaad wax ii qabto oo macaan nin walba aad ordaya ninkii maarad asaga wax qabadkiisa ama maarad wax qabanaya nin walba ordaya waxa aad filaysaa in lagu qabto maxay tahay waxa in la qabto maarad aniga kaliya waxa in la qabto mar raba in dadweynaha dhan maarad wixii la soo doorto county laga soo doorto wax loo qabtaan rabaa waxyaabaha is leedahay waa la qaban lahaa oo hadda ka maqan maxaa kamid ah waxa ka mid ah kama maarad akhriska oo kale iskuulaha oo kale ama maarad meelaha oo kale ay ka jiraan maarad biilaanta ay ka jiraan oo kale dhibaatada dadka maarad duulka miyiga ay dhibaatada ka haysata in la saacideeyo ninkii maarad wax uu qabanaya ama amaanka oo kale wadadka maartay hisiisinaya insha Allah sida nidayda jeceshay sababtoo nin wax hisiisinaya ilaahay baa garna mana naqaan haye magacaaga sheeg magacaygu macaan Ali Abdi Bakar haye ma socdaysa waa socday safka meeqa daqiiqad ku jirtay wallahi safka adiga qarib 10 daqiiqad ku jiray ka warraysay wax kala socdaan halka maxmed laakiin xoogaa waxa jira jaamac jir dadka wali aan nafteen xoogaa ay bishid laakiin dadka xoogaa inaad qofka aad dooranaysa ama xisbiga aad dooraneysay maxaad ku dooraneysay waxa qabad maxaa kamid ah qabad lacagta meesha la keeno in ilaaliyo isbitaal biyo baadari meeqa sanad codaynaysa aniga waxaan soo bilaabay 1960 midkii horeysay doorashada Kenya ugu horeysay aan soo bilaabay haye marka maanta codkaaga waa dhiibatay maxaad rajaynaysaa marka alxamdulillah nabad iyo amaan dadka waxa waaqaya in nabad ugu noolaado waxaan hal maalin waa tagi ka nabad ku dadaala magacaaga walaal magacayga waxa la Cabdiraxmaan Abbaas Amiin Cabdiraxmaan codkaaga soo dhiibatay gacanta iyo qad lagu soo galiyay meeqa saad halkan timid wallahi inta waxaan joogay 15 daqiiqo 20 daqiiqo marka xilliga timidba hore codkaaga ka dhiibatay hore codkaaga ka dhiibtay haye maxaad ka rajaynaysaa doorashadan wallahi doorashada si fiican ay u socotaa ninba nasiibkiisa iyo codkiisa hela haye laakiin si nidaamsan oo fiican ay u socotaa doorashada marka nidaamka iyo qaabka wax u socdaan adiga ku qanacsan tahay nidaamka iyo qaabka waa ku qanacsan yahay meeshan waa police station ugu weyna oo magaalada mixdeeda ah laakiin waa la kala socdaa nidaamka iyo line-ka wax walba hagaagsan qofka aad dooranaysa ama xisbiga aad dooranaysa maxaad ku xulanaysaa waxaan ku xulnaa aragtidayda iyo waxqabashadiisa iyo dadkan badan waan wala garanayaa mardadii wax soo maaha ka bilaabo madaxweynaha ilaa iyo MCA-ga wadadan aqoon u leeyahay marka kureyda meesha ku dhacaa waan ka fiirsaday waan garanayaa kuwaasi waxay ahaayeen dadka ay u suurta gashay inay saaka codkooda dhiibtaan balse dhanka kale waxaa jira dad weli ku jira safafka oo weli aan codayn meelaha qaar dadku waxa ay dhibaato ku qabeen qalabka elektroniga ah ee doorashada lagu talagalay in dadku ay ku codeeyaan gaar ahaan kuwa lagu xaqiijinayo qofka iyo magaciisa iyo sawirkiisa lagu xaqiijinayo iyo inuu tahay meesha uu ka codeynayo waxaa la hadlay qaar ka mid ah dadka safafka ku jira ee aan weli codeynin hadaladoodiina waxaa ka mid ah magacaydu waxaa la yidhaha Ibrahim Asmaan Jibriil saaki 6 yaan meesha soo istaagay 12 ilaa haddana waxaa waaye 5 ruux ayaa iga horeysay sidaan u taaganahay sababta ma lagu sheegay sababta waxay yiraahdeen mashiinaha ay dhilay ka jiraan marka waan iska sugaynaa kulliga sabar ma dul qaadanaynaa saaki markaad soo kaleeyso waxaad ujeedadaada in xilli hore aad codayso xilli hore codeeya waana ujeedadayda maaragtaa ninka aan rabo oo dalka iyo dadka wax u qabanaya inaan doorto ujeedada sidaa yahay laakiin haddana waan sabri insha Allah magacay waxa la yiraahdaa Baashi Deeriye Hudow insha Allah waxaan rabaa inaan ku raadsan nabad aan ku rido 4 saac 20 nimaaday waan riid doonaa insha Allah hadda leenkan ku jira codkayga waxaan rabaa inaan nabadgelyo aan ku helno wadankan madaxweyne aan doorano oo gafana doorano oo kansala doorano oo MP doorano mas'uuliyiintaasi aad dooranaysaan maxaad ka filaysaa waxaan ka filaynaa nabadgelyo iyo naxariis iyo wadankan wax u qabtaan waxa la qabanay maxay tahay sida gaarka sida horumarinta waxaan rabnaa in maartay laamiyada la dhisa isbitaalada la dhisa iskuulaha wax loo qabta dadweynaha wax loo qabta inta meel baa laga tagin
mislada marka codkaad maanta dhiibatay intaas waa ku heli doontaa waa ku heli doonaa insha allah jawiga macnaha dad weynaha siday u faraxsan yihiin oo kuraha u ridayeen oo waddanka nabadgelyo ugu jirta sidaas ayaa caddaynaysa anigana aan ku faraxsanahay وهذا كواسنا وحيا هاي قار كم إذا دتك عدكو ذا كدي بنا يي مقالة وجير وورمي وريا بي بي سي دا حسن علي قال فيسبوك هدي أنه إجنو دتك نقول شو حريري بدري عبد الله إبراهيم وحوليه دور الشدة كينيا ما أنت سيد الرسمي جاه دلك سوق باللعبتين وبجادين يا وحاصل لو غفر يا يوري سومالي دلك الدجن إن أي صو سارتان عد وحتر أوله عبد الرزاق محمود عد وحوليه أو جوجا أو بري قبلك جيجا وحوليه هي يوري waxaan u rajaynayaa doorashada Kenya in si nabad ah ay ku dhamaato oo dalka iyo gobolkana markaasi ay u noqoto mid ay isugu soo dhawaadaan wahaga kuwaasina waxa ay ahaayeen qaar kamid ah dadka raayigooda Facebook noogu soo qoray wali halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC Afrikada barina saacadu waxa ay iminka tilmaamaysaa 2 duhurnimo iyo 20 daqiiqo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهاجاك دغيستيال markana aan u gudubno magaalada labaad ee dalka Kenya ugu weyn ee Mombasa oo ka sokow inaan loo codayn jagada barasaabka ay misna jiraan goobo aan cod bixinta laga bilaabin xilligii loogu talagalay wariyaha BBC-da Cabdi Fataax Ibrahim Cagayar ayaa Mombasa ku sugan oo noo haya wararkii ugu dambeeyay Cabdi Fataax faraxo halkan magaalada Mombasa waxaa si habsami uga socdaa cod bixinta iyadoo ilaa haatan ay dadka codkooda dhiibanayaan xilli sabab dheer laga soo sheegayo qaybo kamid ah goobaha codbixinta ee deegaankan kuwaas oo la sheegay in xilli dambe ay furmeen faraxo halkan iyo deegaanka kale ee Kakamega si ka duwan deegaanada kale ee dalkan waxa ay dadka codkooda ka dhiibanayaan 5 jogo halka deegaanada kalena ay 6 dhiibanayaan waa arrinta ka timid markii xalifidkii guddiga doorashooyinka Kenya IEBC ay hakiyeen doorashada barasaabka labadaas deegaan halkan Mombasa iyo Kakamega laakiin arrintaasi maanay ka hakin dadka in ay codkooda dhiibtaan maanta oo ay kala doortaan 5 kursi kale soo hartay hadaba goorsi horeysay ayaan waxaan tagay xaafadda Fort Jesus gaar ahaan barta loo asteyn dadka ay halkaas codkooda ka dhiibtaan nasiib wanaag waxaan halkaas kula kulmay Soomaali badan waxaa si gaar ah soo jiitay hooyadii gabar ay dhashay oo markaas soo gaaray goobtaasi si ay wadajir codkooda ugu dhiibtaan waxaan ka codsaday in ay inoo waramaan way naga ogolaadeen sheekadan ayaana ina dhex martay السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعة مام. حسن عبدي. حسن عبدي ما أنت محاضرك وجوكتها. هنا عديو عد كان وان صورتي. طبعا دورشتي كور ريسمان ما قد جربت صعديس. لا مو يا صعدينا. قانون صعدينا إلى مركز لا عدوا عدينا. ما أنت محيك قد وأنت هاي مالني هي هرو صعديس. قبل إذا إلى صعدتو أنا كنت فرح سنة قبل إذا أصل صعدينا ما أنت سيقول دقنتاي. وادو دقنتين مية. وادو دقناي. مركب عد قان ستين أنا دود عديسان. هنا وادو عدينا قال سنة. محضرين يسا مركب. راحان دريما قبل إذا إلى صعدتو يسود أدبان أفرح سنة. ما شاء الله هذا عدك قد سوديت. عدك قد سوديت. محد كرجيني سدورشان لك صباحا. دبقة رقبة نبض لليون إلهي نوكي أنا كرجينينا أو نعنفعه أو دلك عنفعه أنا كرجينينا. واتها ما حسنا بدو ما تسنتها بالقبل هذا مركنا الله ورا المقعة. منو عثمان عبدي. waad codaysay halkan fudjiis baad joogtaa dareenkaaga bal ka war dareenkayga aad u sareeyaa waa soo codeeyay alxamdulillah waxaan rajaynaynaa dad wanaagsan inay noo soo baxaan oo wax qabad leh maxaad dareemaysaa in maanta hooyada aad keentay halkan oo aad wada codayseen waan ku faraxsanahay inaan hooyaday halkan u soo kaxeeyay aan wada codaynay oo waliba si nabad aan ku codaynay oo haddana maasha Allah codkeena aan soo dhiibanay oo aad ugu faraxsanahay ma waxaad si qorsheyseen baa mise saakun bay ku dhalatay inaad soo raacdaan maya waa qorsheeyay inaan hooyaday soo kaxeeyo qorshe ii degan u ahaa maadaama aan soo codaynayo kaliya inaan soo codayno hooyaday hore u soo wato waxaad sheegtay in carruur ay ku joogaan reerkii uga soo tagtay reerka waxaan ugu soo tagay carruurta qaar way weyn ku jira ayaga ishaaya marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan hooyaday la soo codeeyo oo la socdo farxad gaar ah ii tahay waa markii kugu horeysay aad wada codaynaysaa waa markii igu horeysay aan wada codaynayno waxaan rajaynayaa codka dambana inaan saan u kala wada codayno باذن الله الكريم باذن الله doorashadii maanta waa codayseen ma guriga dib ugu laabanaysan mise may gurigan dib ugu laabanayna ilaa natiijada ka soo baxdo gurigan joogayna insha Allah maxaad ka rajaynaysaa doorashada reereenan rajaynayna kulli anaga hadaan nahay ganacsato dib aan rabnaa shaqadeena inaan ugu noqono ma rabna wax rabshay inay soo baxaan waxaan rajaynaynaa nabad وهذا كواسنا waxa ay ahaayeen xasna cabdi iyo gabadheeda Muna Cismaan oo maanta ka codeynayay magaalada Mombasa Cabdi Fataax waxaan soo gaarayay inay jiraan goobo aad uga dib dhacay xilligii codeyntu ay bilaaban lahayd maxaan kala soconaa
faraxu goobahaasi codbixinta waqtigii loogu talagalay inay furmaan saacadaha dib uga dhacay waxaa kamid ah dugsiga hoose dhexe ee Mvita ee bartamaha magaalada Mombasa halkaas oo kumanaan qof ay qiyaastii 3 saacadood sugayeen inay soo gaaraan saraakiisha guddiga doorashooyinka ee halkaasi loo asteeyay in ay dadka codkooda ka qabtaan goobtaas ayaan tegay xilli uu jaawareer ka jiray waxaan kula kulmay wiilal iyo gabdho tiro badan oo Soomaali ah iyo dad kale oo tiro badan oo deegaankan u dhashay gabdhihii baan weydiiyay baldareenkooda sida ay ku muujinayaan magacaylaan Cabdullaahi waaye waxyaalo badan way jirtaa wax la waan fahmi laana saa u soo kala hel lahaadna waxbana ma jiro waxbana lama sheegayna meeshii la iska taaganay lahaada anaga dhan waan weerarsanahay ma ogno waxa sameyn karno wixii la sameyn karo lama ogo waas ka sugeynaa ilaa waxayna dhahaan dadka qaar way maanay baxay marka lama ogeyna dadka ilaa intaas la dul qaadan kara dad qaarna ilmahooda ka soo tagaan nin walba mashquulkiisa ayuu ku jiraa magacayga waa Leila halkan waxaan joogaa Mombasa 15 sano meeshan votingka ka dhacayo waxaan mid 3 barkaar intuu subax halkan aan ku tukada ilaa iminka dhaqdhaqaaqna ma jirto dadkii IBC-ga midna muhiiman waraqadii lama keenin maba garanayno waxa meesha ka dhacayo waxaan dareemayaa inuu wax ka socdo meeshan oo naloo sheegaynin waxaan doonayaa inaanu ammaan ku joogno oo sabarna yeelano waan iska sugeynaa ilaa xilliga la keeno waraqadaha ayar xataa habeenka haddana loo keeno anagu waxaan doonaynaa inaan vote garayno aniga Ambiya Axmed Alaydaha Mvita aan joogaa 18 sano Mvita joogaa almost 4 jeer aan kura ka ridi aniga waxaan weydiinaa Kenya horta weliga in IBC 10kii barka marka loo soo kacaydo diyaar loo imaad jiray hadda diyaar ma aha ilmaha inaan ka soo tagnay halkan maanta dadka stranded way aw kuraad ma jirto miya dadka kale faraxo waxaan isna isla goobtaasi ku kulmay Khalid Khalifa oo kamid ah dadka doorashada kormeeraya la fahantiisa nijab ayuu arintaasi ka muujiyay wuxuuna ii sheegay This is Mvita Primary, one of the big stations here, polling stations in Mombasa. waxaan hadda joognaa iskoolka Mvita oo codadka laga dhiibto dadku waxay yimaadeen saacaddu markay ahayd 5 aroornimo wax shaqo oo socoto halkani ma leh ma aragno warqadaha codbixinta sanaadiiqda codka lagu rido meeshan ma yeelaan saraakiisha doorashada ilaa haatan waxba dadka uma sheegayaan way aamusan yihiin wax socdo ma leh Officials of IBC, there is absolutely nothing, and they are telling people nothing. There is nothing, absolutely nothing. kaasina waxa uu ahaa Khalid Khalifa oo kamid ah dadka doorashadan ee kormeeraya oo u warramay wariyaha BBC-da Cabdifataax Ibraahim Cagayar oo ku sugan magaalada Mombasa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Soomaali badan ayaa ka codeynaya iyadoo oo guddiga doorashaduna ay iminka sheegayeen ilaa iyo 6 milyan oo qof inay iminka codkooda dhiibteen dadkaas Soomaalida waxa ay isugu jiraan kuwa marka ugu horeysay codkooda dhiibanaya iyo qaar hore u soo codeyn jiray wariyaha BBC-da Xasan Sheekh Cumar oo tan iyo saaka halka ku sugnaa ayaa waxa uu la kulmay mid kamid ah dadkii hore u codeyn jiray maantana codeynayay oo marka hore magaciisa ku bilaabaya Cabdullaahi Cabdi Daahir oo waxa ka codeyna islihay insha Allah waa triibkeygii saddexaad 15 sano inta ka codeynaya Cabdullaahi maadaama intaasoo muddo aad codeynaysay doorashadan iyo doorashooyinkii hore ee aad codeysay maxaa farqiga u dhaxeeya waxaan arkaa sidii hore ma aha hadda dadka halkaas waxaan ka qabsan jiray fooleen dheer haddaan soo galay dhawaantoodana waa xanuunsanaa markaan soo galayna waxaan arkaa meesha waa empty nidaamkii waa la bedelay wax baa ma garanaysaa la habeeyey waxna haddii la soo waday waa un ma garanaysaa natiija laga gaari hadda kulay dhibkii badnaa ma jiro waxaan arkaya leen maba jiro gudaha lagu feelaya marka insha Allah waanukana waa samrayna codka waxa way xaqan nugula leeyahay inaan ridno waana ridayna insha Allah marka laga soo tago in safafku iyo qaabka wax u socdaan oo fudayd yahay dadku ujeeday u codeynayaan dad bay dooranayaan waxbay rabaan in la qabto adigu maxaa doonaysaa aniga waa saas oo kale inaan dad doorto aan rabaa insha Allah 5 sanaba saas ma garanay xaq noogu leeyahay inaan foodayno tii oo kale umba haddana noo soo wareegto marka dhib weyn ma jiro alxamdulillah wax baan bedelaynaa dawladana dhisayna insha Allah sababta marka dadka aad u codeynaysa ee aad u dooranaysa maxay tahay waxaan u bedelaa waxaan u dooranaynaa isbedel dhaco oo ma garanaysaa sidii weligeenba Kenya ku soo jirnay saas ay 5 sano haday dhamaato inaan wax dooranno tiin bay haddana ka mid tahay
wahagaakaasina waxa waa cabdulaahi cabdi daahir oo ka mid ah soomaalida ka codaynayay xaafadda islii oo u warramayey wariyaha b b c da xasan sheekh cumar wararka ciyaaraha haddii aanu eegno gaar ahaan kubadda cagta kooxda RB Leipzig ayaa waxaa la filayaa in ay soo gebagabeeyaan heshiis ay la saxiixanayaan ciyaartooyga weerarka uga ciyaaraya kooxda Chelsea oo markaa waxa weeye Timo Werner heshiiskaas oo noqon doona mid waqti dheer ah kadib markii ciyaartooygaas uu ka soo tagay kooxda Premier League 2 sanadood muddo iminka laga joogo shalay ayaa 26 jirkaas waxaa la arkay isaga oo markaasi baaritaanka caafimaad u maraya kooxda Leipzig waa hagaag dhageystayaal idaacaddii inta ayay ku dhan tahay galabta ayaanu dib u kulmi doonaa haddii uu eebbe idmo iyada oo markaa warar kale oo dheeraadana aan idiin soo gudbin doono oo ku saabsan doorashada Kenya ciise xaaji cabdilla ayaa barnaamijka soo saaray anigoo faarax lamaanahana waa idinla socodsiinayay ciddii uu sheegay waxaa mar kale ay ka daalacan karaan barta internetka ee bbcsomali.com dib waxaanu kulmi doonaa 5 galabnimo inta ka horeysana sidaa iyo nabadgelyo